عليكم ولا شيء كل سنة يدوم الكعبة كان أدي سودوينيا وقارن هتانا قول ستة سبسكرايب نوصار فيديو قرن لازم نوصار هرا دانا نشوف تفين لسي تشوف فيديو قرن لازم نوصار نوع شركة أدي سلامية موضوعية تعيش إنك قصة هذا منو كومنتو نقول كتا سودويا ما أنتم حنا وضع فيديو قصب waxaan maanta inoo wada waxaan waa talo yar oo ku socota Soomaali guud ahaan khaasatan dumarka haddii aan Soomaali nahay hadaba dhibaatada ina haysata dhibaatooyin badan baa ina haysata laakiin mid kamid ah hadaan ka hadalno xagga caafimaadkeena Soomaali hadaan nahay ma aaminsanin waxa la yiraahdo xanuun depression ka in xanuun yahay ma aaminsanin hadaba dadka qurbaha jooga iyo maxay haday qurbo meesha doona waxa noqdo Carab uu noqon karaa Yurub uu noqon karaa Ameerika uu noqon karaa meel walba qurbo oo wadankaaga marka ka soo baxdid meesha joogtid qurbaad ku joogtaa hadaba waxa jira dadkaas qurbaha jooga aad ugu dhaca xanuunadan depression ka waxa keena sidee bayna Soomaalidu ay uga hortagtaa amba ay u aaminsaneen waxyaabaha inta badan keenay waxa weeyaan waxa qofku marka uu u soo baxo wadan cusub khaasatan marka Soomaali nahay waxyaabo fara badan oo waxa jira wadamadeena aan ka jirin la dhayarsado iska fudud marka qofku uu dadkiisa iyo tulkiisa u dhex joogo waxyaabo badan oo la dareensanayn baa jira marka uu banaan u baxo ku soo wada baxaya hadaba waxaas culaysyo fara badan fikir fara badan waxyaabo xagga doono dhaqaalaha waxyaabo badan adduunka kama dhamaado baahi kama dhamaato ma fahamtay qofka haduu wax kasta haysto adduunka baahi kama dhamaato hadaba dadkeena inta ugu badan waxa ku dhaca depression ka hasaahado nooc doona waxa noqdo dadka qaar kood fikir ku keenay dadka qaar kood baa umusha ugu imaata dadka qaar kood baa dhaqaale yar ugu imaata dadka qaar kood baa rag oo haw badnaadaan darooga inta isticmaalaan ku bato oo hadii tolo xanuun isku bedelaa waxaas oo dhan jira hadaba depression ka uu noocyo badan yahay waxa jira noocyo fara badan oo iska fudud oo iska daweyn karo iyo noocyo kamid ah inuu gaaro meel sare hadaba noocyada fudud waxa weeyaan qofka inuu la socdo xaaladiisa maalinta xaaladiisa arko inuu wax isbedeli ku timiday inuu maxay hayso ugu dhaqsaha badan loo xaaladiisa qiimeeyo oo doctor la xiriiro doctorkaasi wuxuu noqon karaa dhowr nooc dadka qaar kood xaaladoodu iska fudud yihiin baa jira oo macnaha waraysiyo iyo xaalado haysata darteed uu buuqaasi ugu furmay marka waraysiyo la wareysanayo qofkaasi dhakhtarkaaga uu ku wareysanayo ama dhakhtarada depression ka amba cilmi nafsiga qofku u yaqaano aw wareysanayo qofku ku caafimaad karaa waa mid kale waxa jirta xaalado kiniin loo qaato xaalado waxa jirta la nasiyo qofka oo dhakhtarka la dhigo oo inta la dhigo meelo dadka lagu nasiyo waqti qaata oo dawooyin iyo irbada la siiyo si qofkaasi u nasto maskaxdiisa caadi u soo noqoto hadaba Soomaali hadaan nahay hadii la maqlo qofkaas depression baa haya waxa loo qaadanaa qofkaas inuu waalan yahay qofkaas inuu waalan yahay ba meesha la soo dhiganaya waa mid koobaad midda labaad ee jirta waxa weeyaan dadkeena hadii ay lagu raahdo xanuun depression qofku adiga ku haya loo sheego kuma aaminayo wuxuu ku oranayaa aniga caafimaad baan qabaa wax weyn ma qabo dadka qaar kood baa waxa lagu oranayaa qofkan xanuunka depression ka haya aad buu sareeyaa waxaan u baahan yahay in dhakhtar la dhigo oo daweyn la siiyo oo macnaha la dejiyo qofkan isla markiiba waxa imanaysa meesha qofkan irbadaan lagu mudayo dawooyinka la siinayo waa dawooyinkii waalida dadka waalwaalan la siin lahaa uu ku sii waalanaya marka waxa la sameeyaa in dhakhtarkii laga la cararo in maxay hayday la fogeeyo qofkiina wuxuu keenayaa hadii toole in xanuunku ku sii farbato ilaa waxana waa wax u baahan dawo iyo nasiino ma fahantay hadii dawadii iyo nasiinii aad weydid hadaba xanuunkii baa sii farbadanaya marka xanuunku sii farbato wuxuu gaarayaa qofkii heer uu macna iska control kareenin wuxuu sameeyo aanu control kareenin marka waxa dhacday in qofkaasi keensado dil inuu qof dilo qofkaasi qaraabadiisa noqdaan qof kale oo ka fog noqdo inuu qofkii qof dilo inuu qofkii waxyaabo far badan oo caafimaadkiisa iyo naftiisa dadka ku xeeran ba u fiicnayn inuu ku dhaqaaqo hadaba maxay la gudboon hadaan Soomaali nahay waxayna la gudboon in aan aad iyo aad iskaga warhayno hooyooyinka waxa jira xanuun depression oo ku dhaca umusha aba uurka markay leedahay hadii maxay haday xanuunkaagaasi uu markaad maaragtay hooyo tahay oo macnaha qurbo joogtid family ku ag joogin waxa jirta macnaha buuq far badan oo ku furmay maadaama uur leedahay hooyada ilmo kale ku dhex abuurmayo
waxa dhacaysa inuu maxay haday amba markay dhashaba soo jeedka fara badan iyo iyadoo 9 bilood in tacab iyo kusoo jirtay daal iyo maxay haday hurdo la'aan haddana markuu ilmihii dhasho ilaa 40 saa loo yaqaano ma seexdo ilmihii waxa hooyadii ku dhacay markaa depression kaasi haddii hooyadana hooyo fariid ahayn oo nafteeda la socota oo maxay haday caafimaadka ilmaheeda ka fikiraysa iskama daweynayso amba isma ogaan karayso waxay meesha markii soo dhiganaysaa hurdadii baa igu yaraatay buuq baa igu furan maalin oo dhan habeenkii oo dhan waan ooyaa ilmihii igama seexdo xilliga yar maalintii iga hurdana guriga ka shaqeeya hawl baan qabsadaa waxaas dhan marka waxa lagaaga baahanyahay hooyo marka tahay mar aliyaana markaas ku aragtid xaaladaada in isbedel ku yimid inaad dhakhtar la xiriirid dhakhtarkaas waxa laga yaabaa xaaladaadu inay fudud tahay oo kaliya aad u baahan tahay waraysi oo cidna qaska ka kala baxta waxa dhici karta mararka qaar kood xanuunka depressionka umusha dawo la qaataa dawadaasi waa dawo yar oo iska fudud waxay ku siinaysaa naftaada dejinaysaa naftaada markay dejiso waxa seexanaysaa hurdo yar oo fiican naftaada okay bay soo noqonaysaa haddaba mid kale Soomaalida dhexdeeda ka jirta waxa weeyaan marka lagu dhaahdo waalidka ilmahaagaasi amba wiil ha noqdo amba gabar ha noqdo khaasatan wiilasha u badnaadaan maadaama ay wiilasha ay yihiin dadka balwada aad u isticmaala marka lagu dhaahdo qofkaagani ilmahaagani depression baa haya amba wuxuu u baahan yahay dhakhtar la jiifiyo oo la daweeyo dawo la siiyo dhakhtarka la jiifiyo isla markiiba way la soo cararayaan waxay geynayaan Soomaaliya waxa la leeyahay gabar baa loo dhisayaa inankaygu haddii gabar loo dhiso uu degayaa ma fahantay dumarka Soomaalidu hadaba waa dhakhaatiir xanuunka depressionka dhakhaatiirka yihiin intaasna waa kaftan hooyada markiiba intaas way soo dhigaysaa meesha haddaba ninkii amba qofkii maxaa ku dhacay maadaama qofkii yahay qof drugs isticmaala ha yaraado ha weynaado amba isagoo drugs isticmaalin bay hawsha iyo wixii ku farabatay darteed buu stress ka qaadaya stresska depression isku bedelaya depression kalkii looga baahnaa inuu jiibsado nasto waxa ku dhacaysa macnaha markuu intii loogu talagalay xanuunka ka caawin lahaa uu waayo waxa dhacaysa inuu xanuunka ku sii siyaado inuu dil geysto khaasatan sida mardow toola dhacday sida amba toddobaadka dhexdiisa dhacday hooyo inankeedii qurbaha kala soo carartay Soomaaliya keentay ugu dambeyntii ayadu ku dhagaroobay marka waxaan leeyahay waalidka khaasatan Soomaalida dumarka ha u badnaadaan xanuunkaas waa xanuun jira xanuun ceeb lama aha xanuun cayl lama aha xanuun waaliya ma aha uu noocyada fara badan yahay noocyadiisa mid kamid ah hada isku aragtid waxa ku wanaagsan in aad isdaweysid oo dhakhtarka la xiriirid oo naftaada ka warhaysid haddii kale waxaan kugu sii badanay hadhow waxaad gaaraysaa heer aad ilmaha wax ugu qaban kareynin heer aad naftaada wax ugu qaban kareynin heer marka ugu dambeysa waxaad gaaraysaa waali oo kale oo macnaha dee meel lagu xiro marka intaan waxaas oo dhan gaarin waxa ka horeysa inta fudud dawada yar fudud ka qaadanaysid intaas isku la dadaal aad baan salaamay video ugu dheeraaday inta ka wada marayna sii wado video xigeentan ku kulmayno waxaan kaga tagayaa salaam calaykum